قصة أيان ربا إنا نك قصة عجيب أو دوان دعضي نين شيخة أيا دتكي سلادي مركو تجيبا نين وايله يا كوسو غورغورتي إمامكي مركو سلادي كبحي دتكي سو قابلي أيو نين وايله حقه مقابل كيس فديبا كوسو غورغورتي هذا شيخ أبو سلام وحكيل wiilkaygiiyow waxaad i bartaa wax muhiim ah ninka waayeelkan aqoon badanna ma lihi bal waxaan kaa qabsado on ku badbaado ii sheeg buu ku yidhi ninkii sheekha wuxuu yidhi waxaa igu adkaaday waxaan u sheego inaan diinta ilaahay way ballaaran tahay ninkan waayeelka waxaan u sheegi lahaa baan ka fikiray ay codsaday deedna xadiis nabiga igu soo dhacay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam حديث كسوان محي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا الحديث بقى صحيح نينكي وضيقا وحنكو ريبوري رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم لبك المدود باكرة عربك كفضت ميسان كان كو علص إلهينا أوتشعليه وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وحيقول يقول يقول علي بوري على يقول علي أنا أقول علي يقول ويقدب آخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مرارا بنقول علي بس بوري وان حفديس كده نولشيسي نينكي odayga ahaa laba qof ama qof ma arko ilaa uu la hadlaa salaamu calaykum wacalaykum assalaam rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kalimataani khafiifataani cala allisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila arraxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim wuu iskaga taga yaa binti inan baa ka hor imanaysa assalaamu calaykum wacalaykum assalaam qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waa wadaa dadkoo dhan buu la dhex socdaa laba qof halkay fadhiyaan qof halkuu joogo ka badanna waaba fursadba waa dhex socdaa qof walba waa u sheegay maalinta dambe xanuunsan waxaad ka caada dhigato ayuunbaad ku dhiman qiyaamahana lagugu soo saari doonaa ilaahay waxaana aynu ku jirno dhan wax wanaagsan allah inooga dhigo waxaad ka caada dhigataad ku dhiman alcabdu yamuutu calaa maa caasha calayh wa yubcathu calaa maa maata calayh adoonku wuxuu ka caada dhigtuu ku dhintaa inta badan waxaasaana calaamad u noqonay qiyaamaha uu ku soo baxay isagoo sidii ah saa daraaddeed baa waxaa laleeyahay waxa lagu leeyahay ilaahay dikrigiisa badi waa xaaladdu markay faraha ka baxdee sakaraadku ku qabto ee kala guura aad gasho inaadan kari waayin tawxiidka aadan kari waayin wax kale aadan bilaabin sheeko kale oo kugu weyneyd aadan bilaabin ninkii odaygaa waa xanuunsaday dhakhtar baa la dhigay koomuu galay caruurtiisii iyo dadkii ehelka ahaa iyo wada waa dul fadhiyaa waqti dheer buu koome ku jiray maalintii dambe ayuu hal mar indhaha kala qaaday dhakhtarkii diktoorkii oo dul fadhiya iyo caruurtiisii oo dul fadhida indhaha qac ka sii mar quraa la wada farxay wallaahi abba waa soo miiraabay maa sha allah deedna wuxuu yidhi yaa diktoorow ina diktoorkii baa saa usoo hor fadhiye قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حديث كيبو آخرين نفتي وكبحها الله أكبر نفتي وكبحها يا دكتور رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم عندكم كتيروا مدده وسومي راب كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انت مركو يربي نفتك بح ففاضت روحه نفتي سيبا بح سبحان الله بل نسيب كيس ايه بل نسيب كيس شيخ او شيغي ايه ويلكا براي ايه او شيغي ايه ان مارت الهي وافتشي انو او شيغو لبدو waa nasiib badan walaalayaal waxaynu ilaahay la hortagnaan calaamad san waxaan wabtagu ilaahi alwasiila ilaahay waxaad la hortagta calaamadso oo maanta hadaad dhimata aad isleedahay ilaahay wuu kugu naxariisan subhanahu wa ta'ala yeenan iska noolaanin xayaatada waa qaali aan ku camirna ilaahay dikrigiisa
القصة ربعنا إن شاء الله تعالى إذا لو ذاقوا قصة وحويان يوم من الأيام تقريبا لو يكون يو طوانكي تقريبا ما كان كائمة سعودي أيا وحان إمام كاها مسجد كويا مدينة واجد الواجد ذو حويا ماشان كل شيء مدينة واجد أو حضر يقولوا بقول قطامة وحامر كمساجد في مالين كاستكا استاغو نين دولاء او استاغا ما هدلي كرو افتهن معهن مدحو تتابنا يعني ذاك ويقانا واسكا فديسان هذا وحبا لو ارورنا وحبا ما اركو aad baan ula murugooda xaqiiqatan qof la soo tarxiilaan ahay markaas waxba ma haysto aniga markaas waxaan la noolaa zawjaadkayga mid kamid ah oo xoogaha aabaheed dhaqaale lahaa guri loo dhisan baan ku jiray waxba ma haysan marka ilaahay fadligiisa ninkii waan weydiiyey waxaan dhahay macallin isxaaqow qur'aankana xaafid way la soco in dhoolo waaye xaafid likitaabillah waxaan ku yidhi macallin isxaaqow maxaa jira maxaad u istaagtaa wallahi duruuf ay hayso markaasaan ku iri baahidaada ugu weyn oo maanta haddii la xalliyo adiga aad u ducayn lahayd ii sheeg waa ii soo dhowaaday waa xasuustaa anaka waa isla fadhin oo ii soo dhowaaday inuu shoor camal uu ka dhigay sheekadii wuxuu dhahay sheekh xasanow guuraan rabaa laakiin wax ii guurinayo ma laha walaal ma haysti qaraabo fiican ma haysti wadankan la igama yaqaano dadka hadii la iyo garlaana dadka muuqdo oo magaalada la yaqaano magaca leh ma ihi guuran rabaa habeen kasta waxa weeyaan rafaadan ku seexdaa wada naagi raadi abshiran kuuri waxna meel kuma hayo ana ku guurinaayo garabkaagan ahay abshir bil khayr ma'a isxaaq aad buu u farxay waxaan weydiiyey marka ma gabaran hadda kuu doonaa waxba cusub maan kuu raadiyaa ama mid isfahanteena jiro inaan kaaga akhyaariya rabtaa markaasuu dhahay midaa ceelboon meel la yidhaahdo joogto akhyaar ii noqo dadkoodu waxoogaa waa la iya sooya waxaa laleeyahay ninkan in dhoolkan faa'iido ma lahan wuxuu keenayo ma lahan garab la-aana ihayso ee garab buuxi keliya gaariyaan qaatay nin gaari raacaya ma aha waa in dhool laakiin 40 kilomitir waa waajid iyo ceelboonta isu jiraan wuu lugayna intuu socdana quraanku dhameeyna hadana ilaah baa hanuuniyay subhanahu wa ta'ala geedna kuma dhaco xayawaanna ma cuno waxa weeyaan wayda qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ilaah ku ilaalina subhanahu wa ta'ala ihfazillah yahfaz qof kalaam rabbi akhrinayo xabsi ma dareemaan haddaan مع الإسماعيل هذا أنت صوص عن ورد القرآن كان سيد مستريني فرحدا دريما وشة وحنكوري معلنا مركان القرآن كأخرنا وحان دريما إن جوري الشبعة وحبت أنا كريم وحاول إلى لا أذق إدب الجوتان دريما مركان القرآن ربي أخرنا أنت آموسنا هاي أنا عبص ولا غيابة لكن أنت كلام ربي أخرنا عبسي ما قوانيس المهم نكي إلهي فضل مساعد كان كاستاجي أنا واحد من السائلين شيء waxaan ku leeyahay jamaacada khayr ninkan ilaahay dartiisa ugu guurino ayaamahaas hay-aad badan aa jooga waajid almuhimna istaaga $50 ana bixinay ninka la 50 mid kale 50 lacagtii aan aruuriyay gaariyan u kireeyay inuu gaari ma fuuli kari caawan soo lugayna soo baxa ma jirtaan ku waa fuulaysa markaasaan ku maxaa dhacay hadaa fuushid wuxuu dhahay ma taga iga iimaanay wa ficil igu ma tagay gaari cabdibilaan saaray wuu ma tagay soo tacbaan uu tagay laakiin waan geeyay almuhim البون مركان تجي وحنقول يا جماعة الخير دمرك محاضر أجيدي وحنقول قبله وحين كربا وحي أو جوريجا لعبوا بهنا جودري ماعون وحي بالجوري لو استعمال لها دمر كان كربا بارك الله فيكم إسوا ديارية لمدة 3 أيام رجينا العكل كسي أروري المهم أراس وحاد عي أراسك هو ناكسن مجال كذا وأنا حسوستا أفر نف علي على قلي راشين في عنها لعني فرحت يوريرين يخيد بها كذا إلهي فضلك لعقت العقبة كهرتي دكان ودواء الله هذا ونيك اللي نلعق إلى سنكر معها ولا حد كرا وأنا ضعيفة جدا ما لا ولا دكان ولا هذا عن كل دكان كان وعن كهرباء بارك الله فيكم
gurigan masaariiftiis yoomiyan way ku imaanayaan lacagtaana haysa ilaa ay ka dhamaanayso hawshaada wada markay ka dhamaato isoo wac haddana dee qaraabkana u gala wax ma haya anigu laakiin waa soo qaraabaan ku almuhim sidii hawsha ku socotay anigu waa iska hilmaamay oo maalin aan igu naxdin badneed igu soo socota la socda aad baan u naxay aad baan u walwalay khabaraana ii soo sheegay sanad kadib aan sheekadii hilmaamay ninkiina aan wax badan waxa waa ismoogaano oo Nairobi Mandera imeelahan tagtay oo soo noqday maama isoo wacday oo maamooyinka ka mid ah Ceelboon ayaantaasna waxa weeyaan afarta ima xirneen la socdo wax baan raadinay hadda afarta way xiran yihiin insha Allah taala gabdhaha dhan waa waxa gabdhahay la mid yihiin marka ya isdhihin Allah hadii kamerada mid ay ku aado sheekha waa uu ka haliya isdhihin anigu waa xiranta xisaabta marka walaalayaal almuhim gabadhii ay la soo gabadha markii meesha xoogaa isfahanay munaasabadii aabban waa ii diidana mar wuxuu dhahay Ceelboon wax kama rabna iska dhaaf almuhim gabadha telefoon soo dirtay waxay dhahday xasanow cunuga ku dhashay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aad ban unahay way ayaamaas waxa jirtay gabadha inay wax dhasho ay dhahdo hebela sabab ilaha midna waa san socon moogtahay cabsidii markii waxa noqday subhanallahi yaani cabsi aan wiliga soo marin لذا عقدات وحنا سبحان الله ما حد عي إلهي خيرك وسيو قرقي آدستي عنوغا ودا شيء إلهي مركز يقبل جسادنا مدة دويت أروس بعد عي هبين كي سبح دينا والله إسفري رجي أو جوبشوجا كأمر كان ويدي واحد يشجعن نيكي قبض الصوت دوني وحو يروح يدا قبض الشيء وحلا واحد ربتدي كقاضو قبض عن كو قرحي لكن هوتيل الجيم هيو arooskayga hotel la geeymahayo way aqbasho waxay tiri keen lacagihii ay sheegteen waxay rabeen buu dhiibay aqalkiisii uu diyaarsaday subaxdii barqadii markay tahay oo uu filahayo guriga inuu ka dhaco ayaa hotel inta hoos laga heshiiyay gabadhii iyo hooyooyinkii israaceen gurigiina dhowr qof baa lagu reeb habeenkii 4 saac 6 saac markay tahay baa waxa la yiri gabadhaadi xaaskiisu u sugahayay سيري غوري با لوgu dhigay arooski maantay oo gurigi baan sugahayaado ma qan wax ku dhacay waxa loo soo tuuray sawirkii gabadha iyo dumarkii iyo wixii sawirahayay iyo hotelki iyo wixii yaalay ba loo soo diray habeenkii gabadhii waa iska sugay markii la keenay oo gurigi loogu keenay waxa u soo baxday gabadhaan inaysan lahayn hooyo naasixad ah oo u khayr miiraysa oo xalaala oo daacada hooyadaas inaysan noqon karin sodoh gabar iyo qoys lagu aaminaysa u noqon karin waxa u soo baxday qoys khiyaano ku bilaabay noloshooda si ay ku sii wada noolaadaan inaysan macquul ahayn habeenkii gabadhii markii la keenay halkaas oo kale uu seexiyay waagi markuu bariyay buu hooyadeedii aabaheed u yeeray waraystu yiri gabadhaan halkaas ay xal seexatay gacnaheenu isma gaarin saacada laga bilaabo iga fasax wax alla wixii qarash iga galana waa iga fasax waxba idima haysto gabadhiina wad maxaa dhacay markii la yiri wuxuu yiri sawiradan arka hotel baa tagteen balanti waad ka baxdeen dad la xidido laga guursado amaana lana matihiin dhaqan xumana gurigeyga ku bilaabaysaan gabadhiina waa idin furanta sidii ayuu ku fasax hal mar bay hooyadii aabihii tay argagaxeen gabadhii gacanta soo qabsadeen oo boorsada soo qaadeen waxa keenaya waxa weeyaan mukhalafatu sharci ilaahay sharcigiisa hadaad khilaaftid waxaad ogaataa ilaahay waa kugu ciqaabin ciqaabtaasina way ku imaan ma rabtaa inaad farxad ku noolaatid gurigaaga ilaahay ku barakeeyo shuruudan badanna joojiya waxaan adayga ka batay iska daaya fisqigaana ka dheeraado ilaahay uga baqa gabdhihiinana nin kasta oo wanaagsan siiya kana daayo hoteelada ilaahayna waxaan weydiisanaynaa bi asmaa'ihi wa sifaatihi inuu inoo barakeeyo gabdhaheena hooyooyinkeena ilmaheena dhammaantood guur saalixa oo wanaagsan ilaahay subhanahu wa ta'ala u sahlo صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصة يرقى كوان برهبا إنان إذن كورا وحاد عضي قبر با وحا إلهي عالف وقرد نين دبضا إيضا قبر وناكسين ومؤمنة وصالحة ده قبر داس نين كاسو حق هدي قدام بكدوتسي وكرباش والكل دعي دي لآن قروح لآن
نور اللآن نور اللآن يعني هو أول شيكت قولي دحدي سكر إذا أكبر شرف له كرامة له شونايس هبين كي سقنا حي كعدا إلهي بيبرده استعد كو الميسا سيجي هرده أما يسكوا مقن وما لها ضدنا يسكوا سو مارت مقالة يسكوا قلا أي استعد كو الميسا إلهي بيبرده سبحانه وتعالى مالك الدنبه waxay sabirto ay u sabirtaba waa ku furi buu ku yiri waafa wiil ba u dhashay iyadoo wiilkii wadatay reerkoodii u tagtay reerkoodii markaa xoogaa waxay ka xumaadeen dawad garanaysaa ninkan si uu la dhaqmayay iyo dib ku mariyay iyo ilmo isagii ku abtirsanayo gurigii la keenay iyo wixii bay isla akhriyeen aad bay inantii markaa dhibaato kale u dareenta yani ilmihii laguma faraxsana ninkii ba xumaata badan laga tirsanaya nin xiriirinaya ma aha iyadoo la nool buu baktiinaya ma iyadoo ka tagtay buu biil siinaya marka dumarku waxay leeyihiin meelo ay ka wada hadlaan FM bay leeyihiin oo gaar ah waxay yidhaahdeen allah yaa hiblaayo ku guursan adoon waxba u dhalin baa fiicnayde soo adigan waxa sitaa إلهي بقى كأبوري سبحانه وتعالى إلهي بقى المهنسي يهب لمن يشاء وهبة من الله أولاد مرنا بلا منح مرنا بخسارة ما هبلا ياكو وعالم العربي ولمن خاصة عالم العربي هدي قبضنا الله فرعيد بدل ما بقول ستبا يضع الموضة تنا وركت بطول ودور كبا ويميدو وتعسيين وخلاص سبحانك يا عظيم أكون مات مد بابت سيدتان gabadh mu'minada ahayd ilaahay bariyaysaa ku xidhnay maalintii dambe albaabka la soo qaraaca ninkan albaabka qaraacaya waa nin malyan dheera waa nin dhaqaale badan leh oo ilaahay siiyey waa nin qurux leh waa nin aqoon leh waa nin sifaadkii yani wanaagsanaa in badan oo kamida ilaahay uu ku ururiyey subxaana wa tacaala reerkii buu ku yidhi inan baan idinka fadhiya doonaya واتوما وهبلايه هبل وإنتي قبل اللي صفره تكي حافظ ويسكوي على وحال وخلديه مقع كخلدنه إن أنت كير بوسعده نكن وان اللي يقانو وان المقع عليه وان النصب غير مقع عليه كسو كذا وان السدرة نصب كان لنا هاي تذكر نوع في أي نصابته لكن الأنصاب الفاخرة يعني غير لقرنا لو أبترنا أيوه ما يلقون قليلا ملا يعني هذا علي وحال ما إن هبلاية دو تشيدا تيك يرى كسر ماي ما هبلاية ده كسير بدو تشيدا تكسر يرى ما يرى مركز على هبلاية ده نتشيج سوالله صفر وارهمبو ويل بالو صفر وارهمبو يلا نص على نص صفرس ليس كوي على ياب يفعل ما يشاء يفعل ما يريد إلهي عدو دونو شرف يا كرامة سيا منك سيف عمو قبل دوغو سو فرستي ولا وضع فرحاي حفلة وين بالله قبطي وحو دقالي أما قبل دي ودستي أو هير وقد دكتي سيدا أبو قرح بضان نين أو هير كيسا ودقالي إذا محيب الله ضي إن المرلة بات سجودكو أيدو يعني شكر إلهي سيدو وما موسى أقعد القاضي كي متخير بدن أبو بدل حقيقة وحق أمرك وقصة نص قالنا قفك مظلوم كا يقول لك إحدى سلوا ظلمي ودب الدريمة وحي منها ينكر من الشيء لكن هل كابوا عرضيا ففروا إلى الله إلهي إنه بريوي إلهي أما قف كانوا لحظة إصلاح بيجي وناك بقول قليل أما إلهي متك خير بدن أي أبو بدل